waxaan idinku soo dhowaynayaa barnaamijkan gaarka ah ee maanta. Waxaan idinla wadaagi doonaa warbixin qoto dheer oo ku saabsan taariikhda Kenya. Sheekadana waa mid dheer, faahfaahsan, waxaana ku bilaabaynaa bilowgii hore ee ilbaxnimada ilaa xilliyadii casriga ahaa. Fadlan ila soco si aad u hesho sawir buuxa oo taariikheed. Kenya waa dhul hodan ku ah taariikh. Waxay ahayd meel ay degganaayeen bulshooyin kala duwan oo xoolo dhaqato, beeraley iyo ganacsato ah. Bulshooyinkaas waxay lahaayeen luuqado iyo dhaqamo kala gedisan. Dhaqanka iyo ganacsiga ayaa isku xidhay xeebaha, taasoo keentay in magaalooyin ganacsi ay ka soo ifbaxaan. Xeebta iyo harooyinka ayaa noqday goobihii isku xidhay dadkii ka kala yimid gudaha Afrika iyo Baantuugii ka yimid meelo kale. Qarnigii hore waxaa jiray boqortooyooyin iyo beelo awood leh oo maamuli jiray gobollada. Ganacsato Carbeed iyo reer Yurub ayaa ku soo degay xeebaha. Ganacsigii xawaashka iyo macdanta ayaa kobcay. Dekedaha iyo suuqyadu waxay noqdeen xarumo nololeed. Halkaasna waxaa ka bilaabmay nidaam gumaysi oo Yurub ku salaysnaa, iyadoo xarumo maamul iyo saldhigyo la dhisay si loo maamulo khayraadka iyo ganacsiga. Intii gumaysigu socday, dadka deegaanka ayaa la kulmay cadaadis iyo isbeddel dhaqan. Dhul badan ayaa la qaatay, xoolihii iyo ilaha nolosha ayaa la qaatay, taasoo keentay saboolnimo iyo faqri baahsan. Bulshooyinkii qaar ayaa ku qasbanaaday inay shaqooyin adeeg u qabtaan gumaysiga, halka iska caabinta iyo halganku ay sii socdeen. Kacdoonno iyo dhaqdhaqaaqyo iska caabin ah ayaa soo ifbaxay, qaarna si qarsoodi ah, qaarna si cad u muuqday. Mid ka mid ah kacdoonnadii ugu saamaynta badnaa wuxuu ahaa mid ay dhalinyaro iyo beelo isku duuban sameeyeen si ay uga hortagaan siyaasadda dhulka lagu xoraynayo. Kacdoonkaas ayaa sababay isbeddello waaweyn oo bulshada ku saabsan. Dadka ayaa wacyigelin iyo abaabul sameeyey. Ururo iyo haldoorka bulshada ayaa kor u kacay. Marar badan waxaa la xirxiray hogaamiyeyaashii, marar kalena waxay la kulmeen cadaadis xooggan, balse halgankii ayaa horseeday isbeddel siyaasadeed oo muuqda. Markii gumaysigu sii xoogaystay, nidaam sharciyeed iyo dhul qaadis ballaaran ayaa la hirgeliyey. Dadka reer miyiga ayaa laga xayuubiyey dhulkooda inta badan, taasoo dhalisay saboolnimo. Isku dhacyada iyo iska hor imaadyaduna way kordheen, halka dekedaha iyo suuqyada caalamiga ah ay u noqdeen goob faa'iido u leh gumaysiga. Dadkii deegaanka waxay la kulmeen sinaan la'aan, taasoo keentay in bulshadu abaabulo ururo siyaasadeed iyo kuwo bulsho si ay u difaacaan danahooda. Markii wacyigelintu kordhay, hogaamiyeyaal iyo haldoor ayaa raadiyey waddooyin siyaasadeed oo sharci ah. Waxay sameeyeen ururo bulsho iyo xisbiyo, ka qayb qaateen doodaha iyo shirarka loogu tartamayo xuquuqda bulshada. Dhalinyaradii iyo haweenkuba waxay noqdeen kuwo firfircoon, waxayna wadaageen riyo ku saabsan mustaqbal xor ah iyo dal ay dadka oo dhan xuquuq isku mid ah ku leeyihiin. Dadaalladaas ayaa isu rogay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ballaaran. Waddanku markii dambe wuxuu helay fursad uu ku miro dhalin karo riyooyinkaas. Bulshooyinka ayaa si tartiib ah u helay xuquuq iyo matalaad. Heshiisyo siyaasadeed ayaa laga gaaray maamul iyo awood qaybsasho. Taasina waa qayb ka mid ah geedi socodka dheer ee xornimada iyo madaxbannaanida. Markii xornimada la gaaray, caqabado cusub ayaa soo ifbaxay. Dhismaha dawlad xoog leh iyo midnimo qaran ayaa loo baahday. Khilaafaad siyaasadeed iyo dhaqaale ayaa soo muuqday. Dawladdu waxay wajahday culaysyo la xiriira adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, balse horumar la taaban karo ayaa dhacay. Waddanku wuxuu bilaabay inuu dhiso waddooyin, dekedo iyo xarumo ganacsi. Waxbarashada iyo fursadaha shaqo ayaa kor u kacay, taasoo siisay dhalinyarada rajo iyo mustaqbal ifaya. Sidoo kale, xiriirka caalamiga ah ayaa noqday mid muhiim ah. Maalgashi iyo iskaashi caalami ah ayaa soo galay, taasoo horseeday horumar dhinacyo badan leh. Inkastoo saamaynta caalamiga ah mararka qaar ahayd mid adag, siyaasadaha iyo heshiisyada caalamiga ah ayaa saameeyey go'aanada gudaha. Taasna waxay dhalisay dood ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo wada shaqayn karo si loo gaaro horumar waara. Qarnigii dambe, arrimo cusub ayaa soo kordhay. Isbeddelka deegaanka iyo cimilada ayaa saameeyey nolosha dadka. Abaaraha iyo barakaca ayaa sababay dhibaatooyin waaweyn. Dawladuhu waxay la tacaalayeen sidii xalal waara loo heli lahaa. Ururada maxalliga ah iyo beeluhu door muuqda ayay ka qaateen xalinta khilaafaadka iyo dib u dhiska. Bulshada rayidka ah ayaa sii xoogaysatay, waxayna horseed u noqotay mashruucyo horumarineed iyo ilaalinta deegaanka. Dhinaca dhaqanka, afka iyo hiddaha ayaa weli ah laf-dhabarta nolosha. Suugaanta, heesaha iyo ciyaaraha dhaqameed waxay ka mid yihiin waxyaabaha isku xidha jiilasha. Dhalinyarada maanta waxay isku daraan dhaqamada qadiimiga ah iyo teknoolojiyadda casriga ah, taasoo dhalisay hal abuur iyo fursado cusub. Warbaahinta bulshada ayaa noqotay aalad muhiim ah oo lagu faafiyo fikradaha iyo halganka. Sidoo kale, waxaa la arkay koboc ganacsi oo ka yimid hal abuurnimada dhalinyarada. Gabagabadii, taariikhda Kenya waa cashar ku saabsan adkaysi, isu tanaasul iyo rajo. Waa sheeko ka hadlaysa sida bulsho isku dhafan ay uga gudbi karto caqabado waaweyn. Halgankii iyo geesinimadii bulshada ayaa horseeday in la gaaro guulo muuqda, halka weli ay jiraan shaqooyin ay haystaan bulshada iyo hogaamiyeyaasha. Taariikhdu waa macallin,
casharadeeda waa inaan ka baranaa si loo dhiso mustaqbal wanaagsan.